السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحاب قيمة بدن أي كحرن channel كنا يوتيوب سهلتي. isku soo noqod wanaagsan weli waxaan ku guda jirnaa barashada Adobe Photoshop CC21 casharkana afraad maanta waxaan ku qaadanaynaa tool bar ama toolska ayaan ku qaadanaynaa sharaxaadooda toolska waa meesha ugu badan ee marta la isticmaali doona toolska waa kuwan waa marta aad ayna u tiro badan yihiin kulli waa marta wayna soo koobi doonaa sidoo kale in kamid ah aynu qaadan doonaa intaan ka gaarno marta inta kalena marta qayb labaad ayaan ka soo sameyn doonaa okay ugu horeyn waxa ugu horeeyay toolka la yiraahdo marta move tool ayaa ugu horeeya toolka la yiraahdo waa toolkan oo v ayaa loo qaataa okay move toolka muxuu yahay move toolka badanaa waxa loo isticmaalaa dhaqdhaqaajinta shay'ada ama optionada marta in shay aad ku dhaqdhaqaajiso kala loo isticmaalaa tusaale hada rectangle aan soo qaatay rectangle kaas oo kale hada waa sida move tool aan leeyahay kadibna rectangle kaas waxaan awoodaa inaan meeshan u baahdo aan geeyo inaan dhaqdhaqaajiyo sida magaca aad ka dareemaysid move tool waa ka hadba meeshan doona ayaan dhigi karaa move toolka okay toolka xiga waxa la yiraahdaa rectangular marquee tool ayaa la yiraahdaa okay isaguna marta selectionka ayaa loo isticmaalaa waxa loo isticmaali karaa in lagu doorto shay'ada rectangle-ka in lagu doorto shay'ada rectangle-ka ayaa lagu doortaa fiiri hada marta isagaan soo dooranayna kadib okay waa kan rectangle waxa lagu dooran karaa shay'ada rectangle-ka okay gudihiis marka aad furto right click marka aad dhahdo waa kan ellipse tool kana waxa lagu doortaa toolka wareega ayaa lagu doortaa toolka wareega waa kan ellipse toolkan oo kale marka saa tiraahdo kaas ayaa lagu doortaa right click kadibna ellipse aad leedahay waa ku dul jiidaysaa toolska ellipse-ga ah ama wareega ayaa lagu doortaa okay sidoo kale hadii aad sii furto waa marka waxa ugu jeeda single row marquee tool okay hadii marita okay marka doorato isaga soo dooro kadibna waa ka doorashada noocaas ama selectionka noocaas ayuu ku sameeyaa control d oo ka laabo kadibna midka ka sii hooseeyana waa column joogo kale waa ka isagana doorashadaas ayuu ku sameeyaa okay aynu halka kaga gudubno control d okay midka xiga waxa la yiraahdaa lasso tool ayaa la yiraahdaa l ayaana loo qaataa okay marta isagana wuxuu ka mid yahay waxyaabaha loo isticmaalo selectionka ayuu ka mid yahay lasso tool oo marta doorashada ayaa lala raacaa tusaale marta waxaad soo qaadatay shaygan ayaad rabtaa marka inaad doorashaad ku sameyso kadib lasso tool ayaa soo qaadanaysaa waa kan saddex tool kala ku jirto lasso tool ayaa soo qaadanaysaa kadibna waa la raacaysaa shaygii ayaad la raacaysaa markii sidaa aad ula raacdo kadibna afka hore waa isaga soo xiraysaa waa ka kadibna selectionkiisi ayaa ku soo muuqanaa hadda markii sidaa aan ula raacay hadii aan isku dayo inaan jaro waa marta aan iraado halkan aan tago eraser tool hadii aan iraado okay aan iraado waa kan mujida hadda waa marta inta selectionka aan ku sameeyay ayuu ii jaraya okay isagana kaasna waa lasso tool control d gada okay gudihiisa marka aan sii furo isagana waxa ku jiro marta polygonal lasso tool iyo magnetic lasso tool polygonal lasso toolka isagana sidoo kale waa marta waa la raacaa polygonal lasso toolka waa ka isagana selectionkii ayuu ka mid yahay waa la raacaa shayga aad rabto inaad ku doorato waa la sii raacaysaa okay waxa nooga xiga marta lasso tool polygonal tool waxa nooga xiga magnetic lasso tool magnetic isaga wuxuu kaga duwan yahay dhibco yeelan doona dhibco ayuu yeelanayaa
ayuu yeelanaya ilaa aad afka kaga soo xidho. waa ka isagana qaabka ayaa doorashada loogu sameeyaa ama wax loogu doortaa. okay iga celiya control d aan yiraahdo. halkaas ayaan kaga gudbiyaa toolka saddexaad. okay toolka afraad marka toolkan waxaa loo yaqaanaa object selection tool ayaa loo yaqaanaa object selection tool. shay ayaa lagu doortaa sida kuwa maarata hore ayuu la mid yahay. objectiska ama shayada ayaa lagu doortaa. hada objectiga markuu saa uu yahay oo kale isaga selectionkaas ayuu sameeyaa objectiga shayga ayaa lagu doortaa. hadda waa kan selection ayaa saaran. okay control d kala laabo isla isaga gudihiisa haddana waxaa ku jira maarata quick selection tool iyo maarata magic one tool. quick selection tool kan waa maxay in aad maarata shayga hal mar aad click soo doorto. quick selection kale kan wuxuu kaga duwan yahay maarata selectionada kale ama toolska kale isagu plus iyo minus leeyahay. hadii maarata aad u baahato inaad si dheereyso kale plus ka isticmaalaysaa. hadii aad u baahato inaad soo celisana minus ayaad isticmaalaysaa adigoo la qabanaya alta la qabanaysaa waa soo yareynaysaa. shaygii uu ka fara baxsaday waa maarata alta la qabanaysaa kadibna saa u soo yareynaysaa shayga ayaad la simeysaa. waa ka quick selection tool loo yaqaan toolkaas. toolka kale xiga waxaa la yiraahdaa crop tool ayaa la yiraahdaa c ayaana loo qaataa. okay cropka waa maarata badana waan aragnaa waan isticmaali doonaa. tusaale shay hadii uu ka weynaado kale ama aad u baahantahay inaad geesaha ka soo yara jarto kale ayaa loo isticmaalaa. tusaale hadda anaga warqadan cabiraan ku soo qaadanay laakiin hadii ay naga fara baxsato ama ay naga weynaato kale waan iska soo crop gareynaa waan iska soo jareynaa intaas oo kaliya ayaan ku soo reeban karnaa. hadii move toolka aan taabto cropka waa maarata cabirka noocan ayuu noo qaadi doonaa. hada move toolkan tagayna waa ka inta kale waan soo crop gareynay warqada halaha ayaan maarata ku soo celinay. waxaa inooga xiga frame tool tusaale sawir ayaad la soo gashay waa maarata halaha waxaa ku sameysay frame ayaad ku sameysay ama inta ayaad maarata frame aad ku sii deysay. hadda hadii aad sawir soo geliso ama object aad la soo gasho objectigaas ayuu frame ku dhex gelin doonaa sawirka ayuu frame ku dhex gelin doonaa. casharkeena afraad halka ayuu noogeegaya sida iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. fadlan haddii aad ku cusubtahay channelkeena subscribe inoo saar like tan nagu dhiirigeli wixii faaliyo comment aad qabtana nagu reeb qaybta faalooyinka.